وعنا wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warkii caalamka qodobada aad ku maqli doontaana waxa ka mid noqon doona maxkamadda ciidamada qalabka sida oo dil toogasho ku filisay rag hore loogu haystay inay dil ka geysteen magaalada Muqdisho musharax madaxweyne Mustafa Sheekh Ali Duxulow oo magaalada Hargeysa maanta xabsi loogu geystay madaxweynaha maamulka goboleedka Puntland iyo beesha caalamka qayb ka socdo oo magaalada Garowe ka hadlay arrimaha doorashada Soomaaliya iyagoo sheegay in doorashada la isku ogolyahay ka dhacda Soomaaliya dagaalkii Itoobiya ka socday miyaa lagu kala baxay mise uu socdo qodobada iyo qodobo kale ku maqlaytaan barnaamijka aadana ku soo dhawaada warkii oo dhan أنا كوبلا بنا محكمة إذا قلب كسيدة الصومالية أيا وحى أي دل توغشا كفر سي صدحنين أولو هيستيين أي إلى البدن كجيستين مقالة مقدشو محكمة إذا قلب كسيدة أيا فقارها سكول بلوسية مقالة مقدشو وحا إيمانتا دل توغشا كفر سي صدحنين أولو هيستيين أي دل توغشا كجيستين مقالة مقدشو محمد حاجي إلك عسائي سالم يا هاشم أي محكمة كل حكومتي إن أي تلبريرة كجيستين مقالة مقدشو هالقاسي أو أي محكمة قدامين أي كل حكومتي إن أي يهين توغشو فقارها عدالة إسكول بيسية وحا محكمة مركي ديلك وصود ماذا ورباهن تقولها الله حراليها قود قرنكا جنرال عبد الله بولا كمي isagoo oo shaaca ka qaaday in dadkii hore ay u laayeen gadkaasi ay cadaalad heleen waxa uu sidoo kale sheegay bule in ay dadkaas kasto oo dilal ka geysta magaalada Muqdisho iyo waliba Soomaaliya ay heli doonaan qaabtan oo kale waxa uu intaasi ku daray in ay tusaale u tahay in aan la caafin doonin bule kuwa dilal ka geysta Soomaaliya dhanka kale waxa isna maxkamadda ciidamada qalabka sida ee waa gudoomiyaha Janaal Xasan Nuur Shuute uu sheegay in dadka Soomaalida ay ka waantabaan waxyaalaha macaadarada ee dhiigga loo daadinayo waa sidoo hadalka u dhigay Janaal Shuute مشرح مدحوينه مصطفى شيخ علي دحلو ayaa waxa maanta xabsi loogu geystay magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland Mustafa Duxulow ayaa waxa xabsiga dhigay ciidamada garoonka diyaaradaha ee Cigaal International Airport kadib markii halkaasi uu ka day waxa ayna lagu su'aalo ku weydiiyeen garoonka diyaaradaha ee magaalada Hargeysa oo la sheegay wali inuu ku xiran yahay Duxulow ayaa waxa la soo sheegayaa in halkaasi uu rabay inuu waqtigiisa meelo kale laakiin ma cadda sababta ay u xireen musharaxaasi madaxweyne oo kamid ahaa musharaxiintii ku shiray halka ee dawladda Soomaaliya mucaarad ku ahaa waxaana xusid mudan inuu kamid yahay xildhibaanada dawladda federaalka Soomaaliya oo Soomaaliland ay sheegtay inaysan imaan karin magaalada Hargeysa qof xilhaya madaxweynaha maamulka goboleedka Puntland سيد عبد الله الدني iyo waliba safiirka Suudaan ee Soomaaliya xogayaha urgoleedka igaad ayaa waxa ay magaalada Garowe ee caasimadda Puntland ku qabteen shirkad kuwaas oo ka hadleen in doorashada Soomaaliya ay u baahan tahay in la soo ogolaado cadaaladna ku dhacdo سيد عبد الله الدني hogaamiyaha Puntland waxa uu intaasi ku daray in isagu uu doonayo in wixii lagu heshiiyay la fuliyo waxa uu sheegay in doorasho dhinac u janjeedha aan marnaba la isla aqbali doonin waa sida uu sheegay madaxweynaha maamulka Puntland سيد عبد الله الدني oo warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa magaalada Garowe ee caasimadda Puntland waxa isna halkaasi ka hadlay safiirka Suudaan Soomaaliya u fadhiya isagoo oo sheegay in aysan suurtagal ahayn in ay gabiyahaanba ay dhinac marto doorashada Soomaaliya isagoo oo sheegay in kabeesha caalamka ahaan ay doonayaan in doorasho cadaalad ay ka dhacdo Soomaaliya dagaalkii Itoobiya ka socday maalmahan ayaa waxa la soo sheegayaa inuu wajiyo cusub yeeshay kadib markii kooxda TPLF ee gobolka Tigray ee dalka Itoobiya ay gabiyahaanba iska baxeen magaalada Maqale ee caasimadda dawlad deegaanka Tigray iyagoo oo galay dhulka hawdka kuwaas oo bilaabay dagaal ku dhuf oo ka dhaqaaqay sida ay sheegeen waxaana ciidamada federaalka Itoobiya ay gaafreegayaan magaalada Maqale iyagoo oo ka baadi goobayo xubnihii ururka TPLF ee ka arriminayay
dowlad deegaanka Tigray ee dalka Ethiopia. waxaa la soo sheegayaa in saraakiishii iyo maamulkii ay galeen dhulka hawdka kuwaasoo ay sheegayaan inay ka jamhadayn doonaan waxaana kooxda TPLF lagu yaqaanaa in muddo dheer oo ilaa 1976 ilaa iyo 1991 ay jamhadeynayeen markii dambe ay ka tuureen dowladdii hogaaminayay Mengistu halkaas oo ay qabsadeen oo muddo ku dhow 30 sano ay maamulayeen. guud ahaan warkii caalamka kala socotaan channelkan ku noolnahay YouTube-ka Abshir Joker iyo waliba page-ka Facebook aan ku leenahay Abshir Joker inta ayaan ku soo gaabinaynaa nabadgelyo.